bulshada ku nool tuulada kala Beydh ee gobolka Gabiley ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay adeegyada baahiyaha aasaska oo bulshada kuwaasi oo ay sheegeen in gabi ahaanba ay ku liidato tuulada kala Beydh isla markaasina ay sheegeen in kor loo qaado sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha sidoo kale dadka degan tuulada kala Beydh ayaa dhaliilo u jeediyay barasaabka Gabiley iyo maayarka degmada Gabiley dadweynaha oo arrimahaas ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen ساسن waxaan ku dhigan kayaga anaan waxba aan ogaan jirin madaxweynahayga soo saar barni anaga waxa iyaga hawada lagu kala goostaa hooyo Gabiley ma soo dhaaf hawada lagu kala goostaa anaga waxay dareen kala Beydh kayaga bukal ma oga kayaga baahan ma oga kayaga agoonta ma oga laba agoomo dooni basaan waan hay President Muuse Biixi anagoo dooranay oo halka boorima ma intuu ka yimid saakar ugu qaadnay karo xaqii kala Beydh lahayd uu aasay in soo saaray ahayd malaade duruufahan ku socdaa ilowsiye Muuse nin kala Beydh ilooba muu hay laakiin waan sugaynaa caafimaadka ku jooga caafimaad baan haynaaba Gabiley baa dumarka iyaga la geeyay kuwa dhalaya dhexda ku sii dig baxaano Gabiley baa la geeyay halkii kala Beydh maxaa deys hotelkii kala Beydh soo iska xiran miyuu furiyay ma xidhay be maxaa ma furna muxuu ku furiyay waxba ma furna shaqaaliba ma ka dareerayo shaqaaliba mushaar ma hayaan ma hayaan laba goor buu gaari ku qaadaa laba jeer iyo gaari ku qaadaa oo waraad hal agoon lagama siin mushaar lagama siin barshad baan u leenahay xaqa masaakiin baan u leenahay xaqa xashiish baan u leenahay waxa la xalay masaakiin ay ma ku dhex waqtiyaya daraga calooshu waa weyn Gabiley degan baa xaqeega haystee laakiin waxaan u dibdhigaynaa Muusaan sugaynaa wali Muusaan u leenahay anaan ka quusano inta ka qabnaayo shalay doorano nan maanta inuu naflagaadina nan diyaar u ahay oo kala Beydh waxayaan iskuulkeedii baa dayacaan CHK diibaan jirinba waxaana yariyo wax la isku roray marka xilligan waa laga wada tashani habada qura ka dhaqdhaqaaqda hadii la hadlo oo la qabsado leeyahay waan maxaad ku hadashay waa iska dugsiga ay foodo kala de ay xukuumaddu aynay warboohayn gobol ka tirsan ba Gabiley inkastoo iyaguba waxba hayde walaa inta yarun bay nala dhuuqaanay waxaan u baahanahay saamiyaan ku lahayn kala Beydh meesha durdurkeel waa Khalid Maxamed Daahir telefishinka caalamiga STN gobolka Gabiley